waxaan uu yiri adeer waxaasi waa fadhadhaqdoodii iyo beentoodii laascaanood xaraga kuma joogno horta iyo sanaag xiniyaan ku joogna waa kuwaanu ka eriyeenay kuwa baacadahaya hadduu nii yahay waxaan leeyahay axmed kalaashku kaajaan inuu aqaana way noo nugaal taasi waa kaa qolada ma jeerteenna waxaan leeyahay dagaalku noqon maayo carra dhulbahante maanta annagu Soomaaliland ahaan ma jeclin dagaalkiina laakiin haddaadna deyn weydaan in badan buu dagaalku dhulbahante ka dhacay maanta guri ma jeerteen buu ka bilaabmayaa taa ku talagala ilmaadeer baynu nahay ma qaadi kartaan dagaalkayaga kii shabaabtaa idin haysta marba ina yaroo dhulbahantoo 30 nin doorteen iyo idin waalin dhulkiina nabadgelyo ku nool yahay shaqaysta annagu duulaan idinkuma nihin haddaadna deyn weydaan wallaahi maanta guri dhulbahante xabaddu ka dhici mayso guri ma jeerteen bay ka dhacaysaa boosaasay ka dhacaysaa gaalkacayay ka dhacaysaa xabadda waa soo dhaafinaynaa dhulbahante in badan baa la soo doonteen xildhibaan isagu wuxuu ku doodayay inaanu xabad ku qabsanin laakiin mashaariic horumarneed ka fulinayaan taasoo uu ku eedeynay xukuumadda Soomaaliland ka gaabis baarimaha ka wada waa kuwa mashaariicdii aniga mashaariicdii waa kuwa wasaaradii arrimaha dibadda iyo wasaaradii qorsheyntu mashaariicda maanta laga qabtay laascaanood ilaa nebi aadan lagama qaban waxa laami ka taagan waad aragtay taleex baa la dhisay xudun baa la dhisay orboogays baa la dhisay meel dhulbahanta leeyahay oo aan dhakhtar iyo iskuul dabada loo haynin ma jirto wuxuu dhisayaa ma jirtee wixii aanu dhisnu doonaya inuu dumiyo annaguna waanu ilaashan karaynaa rag ilaashan karaan abaartii baanu caawinaynaa hadduu wax siinayo ma jeerteenka ku bakteeye dhuuda ha siiyo hadduu axmed kalaash wuxuu hay 3 gobol baa la siiyaa mucaawinada annagaana la soo mariyaa annaguna waa naga geyna SPO baa u qaybisa tukarraq bay ka tageen oo 10 cisho gudahood wixii ay 10 sanadood ku dhisi laayeen marka maanta rag qarinaya waxa ay qabanayaan manihin maxamed aadan ismaaciil maxamed shiglan shabakada